وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن صورة الترمذي: باب ما جاء في التشديد في البول. wuxuu baab yahay wixii ku yimi adkaynta la adkeeyey kaadida ruuxu inaanu iska nadiifin oo aanu iska dahirin, iyo wixii ku soo arooray in cadaabulqabri uu ka dhalanayo. qaala alimaamu raximah اllahu tacaala: xadasanaa hanaad ibnu sariy abu sariy alkuufi wa qutaybata ibnu saciid ibnu jamiil ibnu dariifa wrajaa albaqlaani شيخ الجماعة معد بن ماجه، وأبو كريب محمد بن علاء شيخ الجماعة. قالوا حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران قال سمعت مجاهد بن جبر وحان كمقلة وتلميذ عبد الله بن عباس، وننكي ابن تيمية إذا جاءك عن تفسير آية عن مجاهد فحسبك به. آية فسر كيف هدو مجاهد وكاقي مادو واكو في الانتر. عن داوس بن كيسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرة وحصومر على قبرين لبا قبر دسود صومر فقال وحري إنهما لبدودا ليعذبان والعذابيا وما يعذبان في كبير شيء وإن لغو عذاب مايو، معناها شيء نفتو ذكوين ويسكعلين كروايين لغو عذاب مايو، أما بالنسبة للذنب وين هاي دوام مقطع. أما هذا مدكني فكان وحوها لا يستتر من بوله كاديس كما استرجري، رواية لا فسر سو كان لا يستنزه من البول كاديس كما نذيفين جري. وأما هذا مدكني فكان وحوها يمشي متصعد بالنميمة اسكدر dadku warka u kala qaadi jiray rufyaan buu ahaa, kaasoo kale nebigu wuxuu yidhi qataat laa yadkhulu ljanna, namaam laa yadkhulu ljanna. bal nebigu wuxuu ku tilmaamay khalqiga kuwa ugu sharka badan inay yihiin almashaa'uuna binnamiima almufariquuna bayna alaxiba albaaquuna can ilburaa'i alcanat. waa kuwa yacni dadka dhexdooda namiimada iyo isku dirka u socda, waa kuwa labadii isjeclaa kala geynaya, waa kuwa yacni dadkii berida ahaa dembiga u raadinaya ayuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. xadiiska bukhaari ba fii saxiixii ku warinaya 216, imaam muslimna fii saxiixihi 292, nasaa-i fii sunanihi 5,000 iyo markaa iyo 31 raqamka ah, cafwan abu daawuudna raqamka 20aad, ibnu maaja 347, imaam axmedna fii musnadihi 1981, daarimina 739. wa fi lbaabi waxaa ku sugan can sayd ibnu saabit, xadiis sayd ibnu saabit laga warinayo. imaamu muslim iyo axmed iyo ibn abi shayba iyo daxaawi baa warinaya. wa abi bakrata xadiis abu bakra nufeyc ibnu xaaris laga warinayo, ibnu maaja ibn abi shayba iyo axmed iyo abu daawuud dayaalisi baa warinaya. wa abi hurayrata xadiisu abi hurayra yani laga warinaya, akhrajahu ibnu maaja. waa xadiiskii ahaa akharu cadaabi alqabri min albowli, cadaabulqabriga waxa ugu badan ee lagu mutaysto waa kaadida. wa abi muusa alashcariy, abuu muusa alashcari lam yuujad fii nushat alalbaab, maana helin buu leeyahay lam ajid, mujaladka koowaad 207 ilaa 215. wa cabdiraxmaan ibni xasana riwaayadiisana abu daawuud, nasaa-i, ibnu maaja ayaa warinaya. hada xadiisun xasanu صaxiix. warawaa mansuur baa wariyey, mansuur ibnu muctamir hada alxadiis ayuu wariyey can mujaahid can ibni cabaasin. yaa ismutaabacaynaya marka waxaa ismutaabacaynaya xadiiskii hore mujaahid ibnu jabr yaa ka warinaya.
acmash sooma acmash baa ka warinaya acmash iyo mansuur waxay isugu imaanayaan oo waddadu iskaga soo dhacaysaa can mujaahid marka cilmi xadiiska waxaa lagu yidhahdaa mutaabaca shiika marka lagu kulmana waxaa la yidhaahdaa isku shiiqa yihiin mutaabaca taama ama shayku sheekii hadduu ku kulmo waa mutaabaca qaasira labadaa kala baro warawaa mansuurun baa wariyay hada alxadiisa can mujaahid buu ka wariyay can ibni cabaas walam yadkur fiihi maanu sheegin can daa'uus maanu sheegin wa riwaayatu alacmashi riwaayada acmash baa asaxu ka saxiixsan buu leeyahay ayib farqiga udhexeeya muxuu yahay farqiga udhexeeya waxa weeye riwaayada acmash wuxuu warinayaa can daa'uus can mujaahid ibni jabr can daa'uus can ibni cabaas daa'uus iyo mujaahid labadooduba waa ardayda ibnu cabaas laakiin mujaahid markan xadiiska wuxuu kaga warinayaa biwaasita oo ibnu cabaas waxaa udhexeeya daa'uus ibn kaysaan baa udhexeeya riwaayada mansuurna mujaahid isagaa toos xadiiska uga qaadanaya cabdullaahi ibnu cabaas uga qaadanaya ayb tirmidi marka wuxuu rajaxay wuxuu yihi riwaayat alacmashi asaxu riwaayada acmash baa asaxiixa buu yidhi bukhaari iyo muslim iyo abu daauud iyo nasaa-i iyo ibni maaja iyo daarimi iyo axmed waa riwaayada aynu hore usoo tilmaan laakiin saniica imaamu tirmidi waa laga wanaagsan yahayo saniica shiikiisu sameeyey oo bukhaari ah ayaa ka wanaagsan oo in la kala rajaxo maaha maxaa yeelay tacaarudba ma jiro waana la iswaafajin karaayo xadiiska yacni haddii ilaahay ku wariyay mujaahid markii hore wuxuu ku warinayay biwaasida oo warkan ibnu cabaas kama maqlina daa'uus baa u dhexeeyey markii labaadna warkiibuu xaqiijiye wuxuu ka qaatay maxay can fami cabdillaahi ibni cabaas buu ka qaatay riwaayadan mansuur ee marka uu leeyahay waa laga saxiixsan yahay ayada bukhaari baa iyadana fii saxiixii ku warinaya raqamka 200 yacni iyo haddii ilaahay ku warinay 16 abu daauudna fii sunanihi ayuu ku warinayaa raqamka yacni markaa haddii ilaahay ku ron yahay 91 nasaa-i fii sunanihi ayaynu ku soo marnay ugu tegi doonaa 3125 ayb bukhaari marka labada riwaayaba fii saxiixii buu ku keenay mar hadduu labada riwaayatu mansuur iyo riwaayatu acmash fii saxiixii ku keenay waxay ku tusinaysaa marka labada riwaayadoodba inay agtiisa ka yihiin saxiixay ka yihiin saa darteed marka saniica bukhaari uu sameeyey ayaa ka fiican qaabka tirmidi uu maray oo kala rajxida maxaa yeelay kila riwaayatayni waa saxiix xaafidkuna wuxuu leeyahy warawa albukhaariyu hada alxadiisa fii saxiixihi cala alwajhayn labada wejiba wuu ku wariyey marka wuxuuna keensanayaa buu yihi waikhraajuhu lahu cala alwajhayni yaqtadii sixatahumaa cindahu yani fayuxmalu marka waxaa lagu xambaaraya calaa ana mujaahidan samicahu min daa'uus can ibni cabaas uma samicahu can ibni cabaasin bilaa waasida marka saasaa ka fiican in la iswaafajiyo maxaa yeelay muxadisiinta inta badan wayna ka dhici jirto shiikhu intuu xadiis la kulmo oo shiikh kale xadiis looga wariyo ayuu shiikhii magaaladiisii imaanaya marka uma baahnid haddii hadda nin mandheero jooga war lagaaga sheego oo nin nairobi joogaa warka uu kaaga sheego oo ninkii mandheero joogay uu yimaado maxaad u baahantay sanad caali aad u baahantahay soo maa ninkii mandheerada joogay baad ka timi qisadaasa muxuu ahaa mascuud ii sheego saa iyo saase maxaa xaalkeedu yahay bal iga war uu kuu tasdiiqiyey marka uma baahnin inaad qisadii aad ka wariso mascuud inaad ka wariso uma baahnin marka waa intaas wa وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي بان مقلي مستملي وكيع ننكي وحو يدين جريح مشايخ مركا أحاديث أخريان نمبا جريدتك أو يدين جريح وإملاء وحليله هذا هلك المبلغ إنه كان حرم كسمع الله لمن حمد كيله هذا كلا سوميد المقر كاسو كلا شيخ حليه حدثنا فلان عن فلان وكذا أرضي القرآن عن فلان عن فلان دورك بقول لك نين كاسا غارسينيا نين جهوري وحدوين مستملي وكيع مدكي وحو يرينيا هايريس قالوا حين سمعت وكيعا وعن كما قال يقول يسقول يعني الأعمش با أحفظ كحفظ بدن لإسناد إبراهيم بن يزيد سند كالغا وحلغا ورينيو يعني من منصور سغا كحفظ بدن marka hada baab tarjiix lama joogo يعني تاس لفتيدا waxaa la oran karaa waa sanad nisbiya
sanad nisbiya weeye xadiiskanna haddii ilaahay ku ron yahay ibraahim ibnu yasiid haddii ilaahay ku ron yahay lagama warinayo waxaa laga warinaya acmash baa wuxuu ka warinayay can mujaahid baabu maa jaaa fii nadxi bowli lqulaami qabla an yadcama wuxuu baab yahay wixii ku yimi wiilka yare aan cuntada cunin kaadidiisii in la rusheeyo oo aan la dhaqin qabla an yadcama intaanu cuntada qaadan ka hor xadaثna qtaybaة bnu saciidi وaxmed bnu maniic albaqawi qaala xadaثna sufyaan bnu cuyeyna can الzuhriyi mxamed bn muslim ibn cubayd bn shihaab الzuhri can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can muqays binti mixsan cukaasha ibnu mixsan bay walaaliye yani igu bishaaree jannada kuwa xisaab la-aan inta ku gala inaan noqdo anta minhum nin kalaa ku dayday sabaqaka biha cukaasha qaalat waxay tihi dakhaltu biibnin lii inan yaroo aniga ii sugnaaday baan ula galay cala nabiyi sala allahu calayh wasalam nebigaan ula galay inan kaa yaroo lam yaakul idacaama cuntada aan cunin fabaala wuu ku kaajay calayhi cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu wuu ku kaajay fadacaa bimaa-in biyuu u yeedhay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh farashahu waa ku rusheeyey calayhi ay cala albowli kaadidiibuu ku rusheeyey imaamu albukhaari baa fii saxiixi ku warinaya 5693 muslimna 287 raqamka ah nasaa-i 301 abu daawuudna waxaynu kusoo maray 374 ibnu maaja 524 imaam axmedna 2624 dabaraani 143 daarimina 741 raqamka وفي الباب وحكسوا عن علي بن أبي طالب حديث علي بن أبي طالب لقورنا إمام أحمد يا أصحاب السنن بأسو صار إلا النسائي حين حديث كان معنيه سوها ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وعلى الرشين ياويل خير كاديسي قبلنا وعلى رق وعائشة حديث عائشة أخرجه الشيخان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأوتي بسبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه زاد مسلم ولم يقسله هذا لقد حديث نوعها وزينب حديث زينب بنت جحش أخرجه الطبراني بصو صار في الأوسط أي كسو صار وفي الكبير طيب رقمك شنكن يكون لي أفر إلى واتن حديثك رقم كيسون وبقول فرتن يكون سيدو كلا صو صار يعني كم إذا إذنه واللبابة بنت الحارث وهي يدن وحوي وأم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رواية اللبابة أبو داود ابن ماجة ابن خسيمة في صحيحه أي كسو صار أبو داود نصلح والخضوات الإشام بين كسو مارني ابن ماجة نشام بقول لبي لباتن ابن خسيمة في صحيحه لو بقول سديتني لبا سيدو كله وأبي الصمحي وخادم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر وابي ليلى وابن عباس انت صولن وحي سو صارين احاديث كصابسن ilmaha yare aan raashinka cunine wiilka kaadidiisa in la rushaynayo waan la dhaqayn waxba la xafujinayo gabadhiina maxaa la sameeyaa ayada waa la dhaqayaa tayib riwaayadan marka Abu Samhina Abu Daawud Nasa'i ibn Majah ayaa soo saaray kuntu akhdimu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam xana hadiiska ku jiray yuqsalu min bawli al-jariyati wa yurashu min bawli al-ghulam حديث نوع صحابة أبو داود نحن قصة مرين صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط أما حديث أبي ليلى أخرجه الضحاوي في شرح معاني الآثار أي قصة صار وأما حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني أي صار وهو كاس ويل كيركادي سئل الدقاء وقول غير واحد هل غفوح كبدا قول كيس يسد وكتب من أهل العلم كمدا ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كمدا والتابعين تابعينتي ومن بعدهم عدي تابعين تكدم بيسي مثل إمام أحمد وإسحاق قالوا حين يمدح والرشينيا بول الغلام ويلك يركاديديس ويقصل ولا رقيا بول الجارية قبل يركاديدنا ولا رقيا أي لهذين وهذا أرجع سنوحوي ما لم يضعما هدان عنتظ آن يقودا فإذا ضعما هدي قوتان ومرأي عنت عنان وصل ولا دقيا جميعا لمنتود فارق وحوي هاي قتادة ابن دعامة السدوسي وحديث كورنية
ayaa laga soo naqliyey wahada maa lam yadcama faidaa dacima gusila jamiican riwaayada axmed iyo tirmidi ay warinayaan ayb inoo iman doonta 610 bay inoogu iman doonta maxay tahay xikmadda loo kala soocay haddii ilaahay ku rayo wiilka iyo gabadha loo kala soocay maadaama labadoodiiba aanay cunto qaadan xikmadda loo kala soocay wallaahu aclam ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala laakiin culimmadu waxay isku daydayeen inay xikmaddaa baadhbaadhaanu ay wax ka sheegaan waxay yidhaahdeen waxaa loo dhaqay haddii ilaahay ku ron yahay gabadha kaadideeda waxaa loo rushaynaya yacni waa dhanka nijaasada ayaa loo rushaynaya oo nijaasadeeda aqlada qowlkaasi waa qowl daciifa waxaa ka haboon qowlka kale ay yidhaahdeen xikmadda wiilka kaadidiisa loo dhaqayaa waxa weeye dabciga bashariga ee jiblada basharkaabaa wuxuu jecel yahay wiilka saa darteed qof waliba oo qaadaya isaguna qof walba oo qaada muxuu ku taliijinaya kaadi buu ku taliijinaya marka waxay yidhahdeen waa min baabi rafci alxaraji waalmashaqa yacni waa dhibta iyo mashaqada in ummadda laga kor qaado wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra marka si qof walba oo uu ku kaajo haddii la marada iska bixi waa dhaq haddii ilaahay ku raya mashaqaa imaanaysaa tan dambaa marka fiican mid kale oo haddii ilaahay ku ron yahay waxaa laga abuuray dhiigga laga abuuray baa nijaaso ah oo kan warkaasi waraan markaa xikmad badni waay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaa fii bowli maa yu'kalu laxmuhu wuxuu imaamku yihi wixii ku yimi buu baab u yahay kaadida xayawaanka hilibkiisa la cuno kaadidiisa wixii ku yimi ma nijaasa mise nijaasa maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa xasan ibnu maxamed azacfaraaniyu abu caliy albaqdaadi saaxibu shaafici xadasanaa cafaan ibnu muslim wa cafaan ibnu muslim ibn cabdillaahi albahili abu cuثmaan الsaqaar albasri siqatun sabt wuxuu wax ka warinayaa isaguna xadasanaa xamaad ibnu salma iyo axmed ibnu dirham waad kala taqaana xamaad ibnu salma ibnu dinaar albasri abu salma waa siqatun caabid xadasanaa xumayd ibn abi xumayd الdawiil wa qataadaة bnu dicaamata asaduusi wa haabit ibnu aslam albunani ardaydii anas ibnu malik buu isdabageliy can anas ibni malikin ana naasan dad oo min curaynata qabiilada curayno la yidhaahdo ka mid ah curayna waxay ahayd qabiila wa xayun min qutaaca wa xayun min bajiila labadaba waa leh qadimuu waxay soo galeen almadiinata magaalada madiina ay soo galeen fajtawowhaa markaasay ku daltabyoodeen min alijtiwaa baa laga keenayo waa karihuu hawaa'a almadiina daltabyaa la yidhahda af soomaaliga ruuxu markuu jawiga uu la qabsan waayo oo meeshaasi magaaladaasi ay kaa hor timaado cudur waxaa ku dhaca la yidhaha cudur galtiyeed la yidhaaha xalooshaa weynaanaysa naqaskaa ku dhigaya marka hawadii bay inkireen fajtawowhaa waxay ku daltabyoodeen yacnii jawigii madiina fabacasahum rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulka ilaahay baa diray fii ibili sadaqati geelii sadaqadu u diro wuxuu yihi geela aada wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi ishrabuu min albaaniha caaniheeda cabba wa abwaalihaa kaadideedana cabba faqataluu waxay dileen raaciya rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam raacigii nebi maxamed bay dileen wastaaquu libila geeliina way dareersadeen wartaduu waxay ka laabteen oo ka ridoobeen can ilislaami islaamkii bay ka ridoobeen nimankii marka waa laga daba tegey waa lasoo qaqabtay fa utiya bihim waa loo keenay annabiyu sala allahu alayh wasalam fautiya bihi nabiy sal la ala bihim waa lala yimi annabiy sal allahu alayh wasalam nebigaa loo keenay faqadaca aydiyahum gacmahoodu googooyey gacmihii baa laga guray wa arjulahum lugahoodii buu googooyey min khilaafin si isdhaafa wa samara wuxuu musbaareeyey acyunahum indhahoodii indhahana musbaar baa laga geliyey waxaa looga geliyey waa imaan doontaa waalqaahum wuxuu ku tuuray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bilxarati shiilamadoodii dhagaxmadoodii buu ku tuuray yani madiina waxay ka koobnayd 2 golloodoo yani dhagax madow ah marka
meel buur hoosteedo dhagaxa madow waa ka kulul yahay dhagaxa kale halkaasaa lagu tuuro qaala anas ibnu maalik wuxuu yihi fakuntu waxaan ahaa araa mid arka axadahu midkood baan arkayay kuwaas la tuuray yakudu isagoo ku mudaya alarda dhulka bifiihi afkiisa isagoo ku mudaya xataa maatuu ilaa ay dhinteen muxuu ugu mudaya oon iyo haraad daraaddeed wa rubamaa qaala xamaadun xamaad riwaayadiisa inuu yidhahda la arkaa yakdumu alarda dhulka yani markaa isagoo ku xoqxoqaya ikdaamku waxaa weeye yakudu bimacnaa alxaku waxaana loo jeedaa ay yacudu calayha biyo markuu waay caradii buu qanqaninaya dayb yakdumu alarda dhulka isagoo qanqaninaya bifiihi ama bifamihi afkiisa isagoo ku qaninaya xataa maatuu ilaa ay dhinteen bukhaari baa fii saxiixi ku warinaya 233 wuxuu mar kale kusoo celiyay 5685 muslimna 1671 nasaa-i 4045 abu daawuudna 4366 baynu kusoo marnay ibn maajana 2578 axmedna 13674 imaamku wuxuu leeyahy hada xadiisun xasanu صaxiix waqad ruwiya waa la wariyey min kayri wajhin hal dariiq wax ka badan ayaa laga wariyey can anas ibni maalikin anas ibni maalik baa laga wariyey wa huwa qowlu akari ahlilcilmi ahlucilmiga badankooda yacni qowlkooda wey qaalu waxay dhaheen laa ba'sa dhib male bibowli maa shay yani markaa kaadidiisa yuukalu laxmuhu hilibkiisa la cunayo yani shayga hilibkiisa la cunayo kaadidiisu dhib male ayb sidaas waa qowlka imaamu maalik axmed daa'ifa min asalaf waxaa yani ku waafaqay marka xayawaanka hilibkiisa la cuno inaan kaadidoodu aanay dhib lahayn oo nijaaso ahayn madhabka imaamu maalik iyo axmed iyo daa'ifa min asalaf waxaa dhanka shaaficiyadana ku waafaqay ibnu khusayma abubakr ibnu khusayma ibnu lmundir ibnu xibaan ruwayaani shaafici iyo jamhuurtu waxay yidhahdeen ila alqowli binijaasati alabwaali walawraas kulluha min maakuuli laxmi wakayrihi shaafici iyo yani markaa axnaafta iyo waxay yidhahdeen iyo riwaaya can axmed waxay yidhahdeen ama hilibkiisa ha la cuno ama yaan la cunine kaadidiisa iyo haddii ilaahay ku royay saaladiisa iyo digadiisu waa nijaas ayay yidhahdeen dayib axaadiistan maxay kaga jawaabeen xadiiskan marka maxay kaga jawaabeen xadiiskan waxay kaga jawaabeen waa daawo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ugu fasaxay daawo ahaan buu ugu fasaxay ayib waa shay loo dhiibgeliyey waxaase loogaga jawaabay xadiis kale oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay in allaha lam yajcal shifaa'a ummatii yacni alla subxaana wa tacaala ummaddayda dawadeeda ma gelin fii ma xurima calayhim wixii uu ka xarimay dawo alle uma gelin shaygu marka hadduu xaaraan noqdo dawada yani markaa kuu noqon maayo daliilkaa marka waa la buriyey jamhuurta waa la buriyey xadiisku marka waxa weeye sida saxiixa yani waxa weeye xayawaanka waxaa loo kala qaadaya mid hilibkiisa la cuno xalaal ah iyo mid hilibkiisa aan la cunin wixii hilibkiisa aan la cunin ee sharcigu u xarimay sida dameeraha iyo baqasha iyo waxaa la midka ah kaadidooda iyo fadalaadkooduba waa nijaas wixii hilibkooda la cunana sida geela iyo lo-da iyo adhigana waxaan leenahay kaadidoodu yacni marka nijaas maaha oo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shay nijaasa kuma daweeyeen dadkan kuma daweeyeen ayib qaacidada labaad ee loo daliishaday waxaa la yidhi laa yajuusu taakhiiru lbayaani fii waqti alxaaja bayaankii sharciga ahaa waqtigii baahida loo qabay in dib loo dhigo ma banaana dadkani acraab bay ahaayeen jaahiliyay ka soo galeen hadday nijaaso ahaan lahayd yaa u bayaamin lahaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka marka ilaahay baaba qur-aanka wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala wixii la xarimayo hadday xaaraantaha waa laynoo caddeyn lahaa waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh baa la yidhi subxaana wa tacaala marka axaadiistii inahaa rigsun iyo iyadana waxaa lagaga jawaabay waa caam axaadiistaasi laakiin waxaa takhsiisinaysa riwaayada riwaayada mxuu ahaa ninka la yihahdo ibnu khusayma inahaa rawsatu ximaarin waa saalo dameerle
xadaثna alfضل بن سهل الأعرج البغدادي xadaثna يحيى بن غيلان qala xadaثna يزيد بن زريع xadaثna سليمان التيمي سليمان بن درخان التيمي can أنس بن مالك qaala wuxuu yihi inama samla النabiyu salى الlaه عليه waslم nebigu wuxuu u masaabireeyey acyunahum indhahooda liannahum iyagu samaluu waxay masaabireeyeen oo indhaha masaabiir ay kaga mudeen yacni acyuna arucaati dadka yani xoolaha raacayay ayay indhaha ka soo tuureen oo masaabiir ka geliyeen ayagana sidii baa loo ciqaabay liana aljasaau min jinsi alcamal riwaayada dambe muslim baa warinaya 1671 nasaa-ina 4054 raqamka abu ciisa tirmidi wuxuu yihi hada xadiisun gariib laa naclamu axada riwaayadan dambe ayuu leeyahay laa naclamu axada ma garanayno dakarahu sheegay kayra hada shaykhi sheekhan cid aan ahayn can yaziid ibni zuraycin yaziid ibni zurayc yani markaa cid kaloo ka sheegtay yaziid ibni zurayc mooye cid kaloo sheegtay lafdigan ah yani indhahooda waxaa loo masaabireeyey sidaas ma garanayno wey wa huwa macnaa qowlihi waana macnaha looga jeedo qowlka alle subxaana watacaala waljuruuxa dhaawacyadii iyo wixii la isgaadhsiiyeyna waxaa ahaaday maxay qisaasunba ahaaday waqad ruwiya waxaa la wariyey can maxamed ibni siriin waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yihi inamaa facala bihim nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu sidaa ugu sameeyey hada arrinkaa inamaa facala wuu sameeyey bihim iyaga wuxuu ku sameeyey anabiyu sala allahu alayh wasalam hada arrinkaa wuxuu ku sameeyey qabla an tansila alxuduudu xuduudu intaanay soo degin oo macnaha waxaa weeye xukunkan curaniyiinta lagu fuliyey ayuu maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahy waxaa ka dambeeyey maxay iqaamat alxuduud oo dee ninkii saariq ahaa in gacanta la gooyo ninkii sinaystay in la jeedlo yacni hadduu guur hore soo maray la rajmiyo ninkii khamri cabay marka xuduuddaasaa ka dambeysay ayuu leeyahayo macnaha xukunka hore waxaa nasakhay maxay iqaamat alxuduud baa nasakhay ayuu leeyahay laakiin nasakaasi yani markaa waa lagu haystaayo inkastoo ibnu shaahayn kitaabkiisa annaasikhu alxadiis wa mansuukhihi uu ku tilmaamay 558 raqamka haddana ibnuljawsi iyo way tacqiibiyeen oo waxay yidhahdeen biana iddicaau naskhi yaxtaaju ilaa taariikh marka la leeyahay shaygan uu nasakhay maxaa loo baahan yahay taariikhda in la ogaado yaa dambeeyey yaa si horeeyey ayb bukhaari baa warinaya 5686 raqamka ah wuxuu mar kale kusoo celinayaa abu daawuud baa isaguna warinaya 4370 imaam axmedna 13672 raqamka ayb waxaa kaloo shucayb arnawud isagu tilmaama aljaamic alkabiir mujaladka waa 91 qaala qataada can maxamed ibni siriin inama kana hada qabla an tansila alxuduud ayuu tilmaamay imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya yihahda 14086 raqam qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi lwuduuءi min alriix wuxuu baabu yahay neeftii ruuxa ka imaanaysay xagga dambe haddii neefi ka timaado in laga weysayso qaadanayo xadaثna qutaybaة bnu saciidi abu rajaء albaqlani wahanaad ibnu sariya basariy اlkuufi qaala xadaثna wakiic ibnu jaraax ibnu malix aلru'aasi can shucbata ibn xajaaj alcataki abulbistaan can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix samaan dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu uhi laa wuduu'a weysaqaad ma jiro ilaa min sawtin cod in la maqlo mooyaane aw riixin ama markaa neefi ay soo baxdo yacni urtii la dareemo mooyaane ibnu maajah ayaa warinaya fii sunanihi oo la warinaya tirmidi 515 imaam axmedna 9747 raqamka hada xadiiث xasn صaxiix xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna cabdاlcasiis bn mxamed addaarawardi can suhayl bni abi صaalixin can abiihi abi صaalix samaan dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اlه alيه wasalam qaala wuxuu yihi ida kaana axadukum midkiin markuu ahaado fi lmasjidi masaajidka yani isagoo ku sugan oo fawajada riixan ur uu helo bayna alyatayhi yacni labadiisa doolood dhexdooda uu ka helo ama labadiisa baryood falaa yakhruj yaanu ka bixin masaajidka yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan cod ilaa uu maqlo aw yajida riixan ama ur uu helo imaam muslim 362 abu daawuudna 177 imaam axmedna
طبعاً يسقاشني أفر رقمك دارمي تضرب قل يقوم لباطن هذا حديث حسن صحيح إليه وهو قول العلماء قول كذا واحد أن لا يجب عليه الوضوء إنه ويسا أن يكون واجبه إلا من حدث يعني ويسدين كتبتون في كتب هذا يسمع صوتا صوت ومقلأ يجد ريحا وأرغه هلو وقال عبد الله بن المبارك وحول إذا شك هذا كشكي في الحدث ويسدي ما كتبتي هذا كشكي فإنه لا يجب عليه الوضوء ويسدي كواجب ميس إنه ويسقاته حتى يستيقن إلى يقينيه استيقانا يقين ويقدر وكركر أن يحلف عليه إنه كنارته فيري مركا أحكام تصيد الله بنيني يفقه هذا أدوك إنك هذا ابتداع إنه في الضوء عليه ما احتياط ما يصان إله لكن عبد الله بن مبارك وحو قارسين يسوم مسألة واتكين يسي أن أصل كيلوغا قوري يعني الروح هدو كشك يحدث كي ويسدي ما كشبتي ميسا كما شكتبين إنانو مساجد كي آنو كبحين ويسن آنا يكون واجبين إلا أو يقين هبالة أو كردارن كرو يقين هبالة أو كردارن كرو وقال وحي إذا خرج عبد الله بن مبارك وقال وحي عبد الله بن مبارك إذا خرج هدو كصوبحو من قبل المرأة هوين إذا حبن كيدي ترنك هدو كصوبحو ريح الناف با كصوبحضي وجب عليها الوضوء ويسا كواجبس وهو قول الشافعي وإسحاق وأنا قولك شافعي إسحاق يعني مركا إلى هدين حديث كان يوحو كمدي هاي قواعد شنطة علماء أي اسكوا فقين لو يقان القواعد الخمسة الكبرى قاعدة لو يقان اليقين لا يزول بشك حديث كان لقوا بنا يولد يعني إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مركا قاعدة وحوي اليقين لا يزول بالشك إمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الضارئ يعني عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الظهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الظهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف قال أصحابنا لا فرق في شك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحديث وعدمه وأن يترجح أحدهما أو يغلب في ظنه فلا وضوء عليه في كل حال أما إذا تيقن الحدث وشك في الظهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين طيب قاعدة مركم حيثها اليقين لا يزول بشك صورة وتسوي سقاطتي markaad soo weyso qaadatay baa shaydaanku wuxuu kugu soo tuuray warmalaha waxba ka yimi maxaad wax ku binaynaysaa wazan ina weyso qabto maxaa asal ka dhigtay al-yaqeen la yazulu bishak طيب cagsigeeda waxaad soo baxday adigoo aan weyso qabin kaasad waxaad ka shakiday toloma weyso qabtaa mise ma weyso qabtid maxaad leedahay أصلكم محوها هاي هذا ويسقى من صومه وهذا هذا يعني اليقين لا يزول بشك يقين توعيد هذا ويسقى من مركا يقين شكل له مسؤولية طيب نبغى وحكي شكي معي ويدينا هبينكي مركان سيحضه بان رياضة كذا هم كل رياضة أنا ناقت هذا فرية مركا ما يقفر أنت يا ما كفر أنت هني كاس ناقت هاي مرفوع القلم طيب وحلم إذا حوين بنان كاميرا ساعدة ترى طلو ملا هوان قرصني هذا ملا هوان قرصني ملقا يري ملقا يري أجنبي بك أصل كوحوها إن أجنبي كاتب مركا قواعد كلا كفر عن تو الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل براءة ذمة روان قواعد سوحسوه سكران قاعدة كلية قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني
أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ما أقبل صلاة أحدكم متكين سلاديسا إذا أحدث مركو ويسد أي كتبته حتى يتوضأ إله ويسقاته حديث البخاري مسلم باورني وإن صامر بقول صدر يشان وحديث عن كبروني مسلم باوسقنا ورني الله بقول لباتن يشان أبو داود رقم كل حبنات إمام أحمد السداد كن يتضبيته هذا حديث غريب حسن صحيح مركع قرابته هدو فرد مطلقة وجهده لبمله حي لي حديثك كما دلنا يسقو قريبة ضعفه كما لازمه سقو هدو مركع ترمذي أو راعيه حسن صحيح أما حسن غريب أو راعيه معناه هذا مركع ضعفه وجهده وهي الحديث البخاري يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى محيه وغريبه وفي الباب وحكصه عن عبد الله بن سيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وابي سعيد حديث عبد الله بن سيد يعني وحا ورنا بخاري مسلم باورنا طيب سيدوك لأبو داود ترمذي غير كود باورنا أما حديثك علي بن طلق حديثك علي بن طلق عبد الرزاق ابن أبي شيبة النسائي في سنن الكبرى غير كود باورنا حديث عائشة يعني سجنه حديث عائشة وحاورنا إمام أحمد بسار الضبراني في الكبير غير كود باورنا أحمد ترمذي في العلل بزار غير كود باورنا أقصوا عليه ابن عباس حديث ابن عباس بزار الضبراني في الكبير بيهقي في سنن الكبرى أما ابن مسعود حديث ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة غير كود باورنا حديث أبو سعيد الخدري أبو داود ayaa warinaya raqamka 624 baynu ku soo maray ibn Majah fi sunanihi 129 Ahmed Abu Ya'la Abd al-Razzaq iyo qeybkood baa warinay imaamku wuxuu leeyahay hada hadithun hasan gharib yani waa hadithun gharib hasan sahih bab ma jaa fi al-wudu'i min an-nawm wixii ku yimi hurdada in laga weyso qaato iyo hurdadii inay weysada jabinayso wixii ku yimi baabiya حدثنا إسماعيل بن موسى يعني كوفي وهناد ابن سري ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي تنوك لو حالي هذا علم حديثك وحالي مقرون بالي مقرون منك حوغا مركو تبر دريح وأنه السنة كاللقونين منكرين حلو حق بالغو كبا حلونا يا حدثنا فلان وفلان وفلان مركا أصدقوا مقرون بها نينكو ضعيف بها هذه هدي رجل لو كبه marka ragana ka kaafiyo Soomaa عن خالد الدالاني وعن ضعيفه عن قتادة بن دعامة السدوسي وعن حديث ويده كان أبي خالد الدالاني عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وارك نام يسقو السيحدي والحال هو النبي ساجد من سجود سنوية نبي محمد السجود يكون سيحدي وارك حتى غضى إلى أخذي أو نفخ أما مركا أو نفصل النبي صلوات الله وسلام عليه معناها عدكي ساعي مقلين نفتي حق دم معه ثم قام ويستاغي يصلي يسقو تكني فقلت وحنا يا رسولك إلهي إنك هذا قد نمت واتزحتي قال وحوري إن الوضوء ويسد لا يجب كواتب ما إلا على من نام روحي سحري موياني مدجعا أي حال كونه مدجعا ويسد وحي كواتب سانين كيرين عاوس سحضا حديث قدو أنصح لها وحسبنا الله بحي نينكي متمكن يصلي فرديا أما السجود سن أما صلاة الإحدى كل الموضة إن ها ويسد كجمع بعد مفهوم لقى فهم له لا يجب واجب ما يسوي يسد إلا على من نام الروح السحري مندجعا سقولين عو إلا على من نام الروح السحري مندجعا سقولين عو تيفا فإنه إذا ادجع هدو تيف صدر استرخت وحادب عيسى مفاصله حبنه سايا دبعي يعني حديثك كلماتها إذا نام العينان استطلق الوكاء هذه لبدا إندود أي استحضان لبدا لنجحيدي يفعد كيدين وفرمية أيضا وفاحس حديثك أبو خالد منك لهذا كجرة ولن ضعيف ويخطئ كثيرا أبو داود بالله بقول يا لبكورنا يا أحمدنا لبكون صدح بقول يصدح يتمن بكورنا طيب
وأبو خالد ميا اسمه حلي يزيد بن عبد الرحمن وفي الباب وحكصبا عن عائشة حديث لقورنا يعني أيا كصبا وابن مسعود عبد الله بن مسعود حديث لقورنا وأبي هريرة حديث عائشة وحصوصا يخرجه ابن ماجه أفر بقول طلباتني أفر رقمك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ من ضعيفة كترة. أما حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. وأما حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي أصوصر البيهقي في سنن الكبرى شنبقل يسدية رقمك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك قال وحولي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتي النبي وحي هاي ينامون كوس يحضر ثم يقومون ويستاقي جرين فيصلون مركاسي تكون جرين ولا يتوضؤون منعني ويسيسن جرين رواية كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيلاده مسلم في صحيح قرن يصدح بقول تضوات الليح أبو داود من الله بقول بين كل صامرنا أحمد الصدح يطلبون كل شام بقول يسقال الوقت. هذا حديث حسن صحيح. قال وحلو وسمعت صالح بن عبد الله بن مقل يقول سقل سألت عبد الله بن المبارك بن ويديي عمن نام الروح سيحدى قاعدا سقو فليا معتمدا سقو تيرصا فقال وحلو لا وضوء عليه وحوي سادوشي سماحا. قال أبو عيسى وحلو وقد روى حديثا ابن عباس سعيد بن أبي عروبة وري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن ابن عباس ومحوك وري قوله يعني قولك ابن عباس حديثكم مركب موقوف ولم يذكر فيه أبا عالي يمان الشيء ولم يرفعه حديث كمان رفضين. واختلف العلماء وحيسكوا خلافين في الوضوء ويسقات من النوم هردد لقوا يسقاتني فرأى أكثرهم بدن قد وحير كان أنه لا يجب عليه الوضوء إنني ويسا أن يكون واجبا إذا نام قاعدا هدو فردي وكسيحه أو قائما أما يستاق وكسيحه حتى ينام مندجعا إلى تيف وكسيحه. وبه يقول الثوري سفيان الثوري باسدا يلي وابن المبارك وأحمد وابن المبارك أحمد باسدا يلي قالوا حلو وقال بعضهم بركود وحيل هذه إذا نام هدو سيحه حتى غلب إلى لقى قال النقض على عقل جيسا وجب عليه وحكوا واجبه الوضوء. وبه يقول إسحاق واسدائر. وقال الشافعي وحوري من نام الروح سيحدى قاعدا سبب فريا أو فرأى كالرؤيا كريوضة فريقي بكريوضة زالت وحاسو شيء مقعدته مكان فريقي يبردي سيباسو شيء يعني اللي وصن النوم هردد قمايد ذي لسو شيء يعني فعليه دوشي سوحا هذا الوضوء ويسقات. لكن سيدا مشهور كترمذي يعني إمام الشافعي أقوال بضم بكسر نقليها يعني مركا حلقل ما أصحابتي شافعي ولقل ما كان ضمير متأخرين تاني لقل. لكن سيدا مشهور كإمام الشافعي مذهب كيسة مشهور كقواه أبو شجاعنا أتقصى برتين حيث النوم القاعد المتمكن يعني الروح مركو فردي وفردي سلمي وفردي هنا ويسديسو أنا يبرر باتقصى برتين. طيب خلاصة مركب باب كان علماء waxay isugu khilaafeen baabkan horta intaynan gelin mas'alo baabkii hore ku saabsan oo madaxda u baahan bajirtay hadalkii Abdullah ibn Mubarak ee ahaa haweeneyda farjigeeda hadii xubinkeeda taranka uu neefi ka soo baxo waysa ku waajibayso yiri Soomaa hadalkaas la daliil عليه wax daliil ma leh waana qiyaas ma'a al-fariq حي النفتن حق دم كسو بحيسا iyo xaq hore mid ka soo baxaysa la isagama qiyaas qaadan karo sida sharcigu waxyaabo badan u tafriqiyo waxyaabaha sharcigu uu kala geeyina la isuma geeyin karo man farqa bayna almutamathilayn فعليه برهان ومن جمع بين المتخالفين فعليه برهان قاعده بره. طيب hurdada hadaynu marka u nimaadno hurdada حديث كان كوادا إنه كملون حديث ابن عباس وضعيف وهو كتر محي أبو خالد الدهلاني سيدو كله يعني وحو خلافه حفاظة يعني انتو ذا بدل وحي وريني حديثكم يسقوا موقوف من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديث حتى لإله النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني مركا لغوت المعنى
nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kaana yanaamu jaalisan la yidhaahdo waxaa weeye nebiga loogama qiyaas qaadan karo sida baabka dambe marka aynu ugu tegi doono xadiisu caaisha abu daawuud wataynu soo marnay inuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yidhi yacni yanaamu qalbii waxaa seexanaya yanaamu caynii walaa yanaamu qalbii indhahaygaa seexanaya laakiin qalbigaygu ma seexanayo ayuu yihi nebigu salawatu ullahi wasalam aleh marka nebiga loogama qiyaas qaadan karo imise madhab baa ku jira waxaa ku jira madhab odhanaya hurdada ha la kala saaro haddii ruuxu uu jiif yani markaa uu seexdana weysadii waa ka burtay hadduu fadhi ama istaag ama yani uu ku lulmoodana weysadii kama burin waxaa madhabkaa ka soo horjeeda madhab odhanaya weysadu naaqidba maaha ee muxuu ahaa hurdadu naaqidba maaha macnaha hurdadu weysada ma burisee waa madinatun linaqdi waxay male u tahay in neefi kaa timaado laakiin asal ahaan hurda iyadu ma buriso ayb waa cagsiga madhabkaa hore waxaa madhabka saddexaadi uu noqonayaa madhab odhanaya noomka iyo hurdadu ama ha yaraado ama fadhi ha ahaado ama istaag ha ahaadee yani weysadii wuu burinayaa waxayna deliishadeen xadiiskii safaan ibnu casaali ahaa yani khufeynka maynan siibi jirin yani hurdo iyo haddii ilaahay ku ron yahay saxaro iyo kaadi umaanan siibi jirin maxaa lagu daray hurdadii laba shay oo naaqidaa lagu daray soo ma saxaro iyo kaadi saxaro iyo kaadina waynu isku waafaqsaneen maxay inay weysada burinayan waa isku waafaqsaneen khilaaf kama taagne qoladaas marka waxay leeyihiin yani markaa hurdadu ama ha ahaato fadhi ama istaag haddiiba hurda xaqiiqowda yani marka weysadii waa burinaya niman mutaakhiriin ahoo muxuu aha sheekh albaani ay ka mid yihiin waxay leeyihiin hunaaka farqun bayna annawmi waannucaas lulmo iyo hurdo farqi baa udhexeeya lulmo qofku marba is soo yaro qabanayo marba xoogaa soo baraarugaya haddana khadka ka baxayo haddana xoogaa online soo noqonayo isku mid maaha iyo mid khadkiiba uu ka tegey soo maha labadaas isku mid maaha marka noom kasta waxaan leenahay hurdadii waa burisaa nucaas kastana hurdadii ma buriso ayaan leenahay ayb saxaabaduna saasun bay ugu kala tageen cabdullaahi bni cumar waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi cabdullahi bni cumar annahu kaana yanaamu jaalisan suma yusallii walaa yatawada yani fadhi buu ku seexan jiray kadibna wuu iska istaagi jiray mana aanu weysaysan jirin maalik baa fi lmuwada kusoo saaray silsilatu dahab silsilada la yidhaahdo sidoo kale man naama wahuwa qaacidun falaa wuduu'a calayhi ayaa laga wariyey iyadana saxiixa abi umaama ayaa isagana saxaabiga le annahu kaana yuksiru an yanaama qaacidan xataa yamiila uma yusallii walaa yatawada abu umaamana fadhi buu ku seexan jiray ilaa uu yaraa leexdo kadibna wuu tukan jiray mana aan weysaysan jirin ibnulmundir baa 152 ibn abi shayba mujaladka waa 132 ayib waxaa khilaafay qays ibnu mucaad baa wuxuu leeyahay ra'aytu abaa muusa alashcari abaa muusa alashcari baan arkay oo salla duhra duhurkii buu tukaday uma istalqaa calaa qafaahu qadaad jeega u jiifsaday markuu jeega u jiifsaday fanaama waa seexday xataa samicnaa qadiidahu yani ilaa aanu khuuradiisii maqalnay falamaa xadarat isalaatu qaama faqaala hal wajadtum riixan aw samictum sawtan raggii buu wareysanaya xita war wax coda maxay ka maqlayseen sanqadhiyo ur iyo wax ma dareenteen qaaluu laa fasalla duhra walam yatawada marka maxay saxaabada isku khilaafeen saxaabigan dambe ee haddii abuu muusa alashcari maxaa ka muuqata isagoo yani u seexday jiif u seexday ayuu haddana yani aanu weysaysan ee uu tukaday saa darteed marka saxaabadiina way iskhilaafeen masaladu marka waa masalo ijtihaadiya culimada u aragta marka noom iyo hurdoo dhani weyso waajibisaa daliil bay haystaan qolada u aragta noomka kala tafriiqisayna tafriiqadaa daliil nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugan ma haystaane waxay haystaan maxay aqwaashaa saxaabada ayay haystaan aqwaal kaloo saxaabada burinaysa oo ka hor imanaysana waa jirtaa allah aclam
قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار مصنفك رحمه الله تعالى وحليه وحي كيم باب يحي ويسقاتك لقى ويسقادني شيء دبك أودوريي معنى شيء دب لقى كريي ويسقاتك لقى ويسقادني حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحي الوضوء ويسقاتك وحوى هذا مما مست النار ودبك وحوطات بحي دبل بكري ولو من ثور أقد ولو قبل يعني عانا لقلتشي أو لإنجتشي بها هذا ثور وحوي بمعنى وقطعة وقبل أقدنا وعانيه لقلتشي عانا بوله وحي لمدك إمام مسلم في صحيح يقول أن يصدح بقول كنتنا يلبا نسائنا بقول تضباطن يكو أبو داود نسقه مختصر وري بقول سقاشن يافر ابن ماجه وحوري يسقنا أفر بقول سديتنا يشان إمام أحمد وتوانكم بقول لحدن أفر دارمي تضبط بقول إلا باطن اللي حرقنك فقال له ابن عباس قال وحوري فقال له ابن عباس بأوحوري يا أبا هريرة مين هوري سؤال صح قال وحده فقال له ابن عباس بوحو كوري يا أبا هريرة أن نتوضأ ميان كوي استقاذننا من الدهن صبق ميان كوي استقاذننا أن نتوضأ ميان كوي استقاذننا من الحميم بيها كل ميان كوي استقاذننا وعاتر شيء كستوضب لقوكر ياها لقوي استقاذننا صبق ميان كوي استقاذننا بيها كل ميان كوي استقاذننا فقال أبو هريرة وحده يا ابن أخي أدير إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا قال يا رداد النبي محمد حديثات كما قشو حديث لقاق الشيبه تصالحه ويري محي لطعي يمحو سايهي حورين محي للروح مؤمنك وحل لقبه وحوي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ضوض بعد حمرتي وسيد رواية الآية عضينا إياه ابن عباس با يركض الله ضمك سيد أشهد وحنقر يا أبوير النبي محمد هلب يعني كتف شاطر انتو هرين آنو كوي سقادا وكذا أبو هريرة نوحوري أشهد وحنقر يا أنونا إنان هدي إلهي يقول يا أنا كي النبي صلوات الله وسلام عليه إنه يريد رسولك صلوات الله وسلام عليه كوي سيستا وحي دبك أو طابطي مركا هدان آذير حديث النبي محمد أن كو شيغو تساله ويري وفي الباب وحافظا عن أم حبيبة وأم سلمة وأنا يعني حديثك كدم باب كدم نوع عقيد دون ترجد حديث أم حبيبة أبو داود في سنن كورني بقول لباتني أفر إلى بقول صدني أفر إلى صدني والنسائي والإمام أحمد وأبو يعلى وعبد الرزاق يغيرك الدوري سيدوت المامي صاحب نصة الألباب في شرح قول الترمذي وفي الباب المجلد هو صدح قول سيدتنا يصدر وأم سلمة أما حديث أم سلمة يعني حديثك أم سلمة وحايسقنا هديرة يكونوا يهي تلمامي عفوا حديثك أم سلمة ما نهلين مصنفك ما نهلين محوها صاحب التحفة صاحب نصة الألباب لما نهلين أما حديث سيد بن ثابت أخرجه الإمام مسلم توضأوا مما مست النار أما حديث أبي ضلحة حديث أبي ضلحة وحاوري سجنه ضحاوي طبراني في الكبير أياوري أنه أكل ثور أقد فتوضأ حديث كهاوي وأبي أيوب حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير أياوري بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل مما غيرت النار توضأ سيدوك حديثك أبو أيوب وحاكدنا هي حديث أبي موسى أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وقد رأى بعض أهل العلم قبركود وحير كان الوضوء إن لقوي سقط مما غيرت النار ودبك وحل دوري دم لبكري وأكثر أهل العلم إنتو ضبضنا وحير كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كمدا يوى التابعين تابعينتي
يوم بعده عدي يجي كدم يسوي حي أركان على ترك الوضوء ويسدي إن لقته مما غيرت النار دبك وحدوري إن لقوا يستقى هذا بي أركان طيب لبابك ورباب نسخة يا واكن باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار باب يوحي كيمي إن لقوا يستقى شيء دب لقوا كريي يعني مركا إن لنسخي وأن لقوا يستقى هذا حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل واختلفوا فيه واطين له وقالوا وحوا لأحمد بن حنبل إي حميده يحتجون بحديثه أكثر أهل العلم ويضعفين سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر لكن رواية محمد بن المنكدر باب متابعين عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى صوبحي وأنا أنقنا معه النبي قال لشركي سأنا نصعد فدخل على امرأة هويني بأقل من الأنصار أنصار كمين وأنا هويني دي تشابر أقبي سيدة أبو داود اللي كسوا مرة وأقول تشابر فذبحت له وحي أقور عليه النبي شاة النيف عليه أقور عليه فأكل واحنا وأتته وحي النبي أكنتي بقناع ما أكنتي من رضب قناع ومصف هذا خضرة إيو ويلك إيو شاه إيو وحن محوها شاه إيو فلاسطة إيو لقو قاضو كان نكتل محالي له ترى إيو هذه لا يكون ومصفتاس مركا ضبق واي فأكل من رضب تمرت مدة عرضا كأي كشرا وخضارتي عنتذا كوريسي تمرت فأكل منه واقعنا النبي صلوات الله وسلام عليه ثم توضأ ويسقط للظهر ظهر كبو ويسقط وصلى واتكذ ثم انصرف صلاة بكب حي فأتته حيولتي بعلالة من علالة الشاتي يعني بعلالة بضم العين علالة إليها وحال هذا بقية الشيء حنبضي يعني نفكي أعني وحي كهر سنة أي أكاد فأتته حيولتني بعلالة أي بقية مولتنا حنبض ومن علالة شاة نفكي أرقى حنبضي سلكمي فأكل واعني ثم صلى واتكذا العصر عصرك ولم يتوضى منعا ويسقادا دورك وهو يسقاطي عصر كنا انتو عنيبان ويسقادا مركب محمود كدن بيي إنان ويسقادا أبو داود بورني بنحوه بقول سقاشنا يكوب إنه كسر مرني وأنا حديث جابر بن عبد الله يقولها النبي صلوات الله وسلام عليه أيان قربت للنبي وحنقول خبزا ولحما يعني فأكل ثم دعا بوضوء فتوضع ثم صلى الظهر يعني ظهر جبوت كذا فأكل ثم قام إلى الصلاة يستاغي النبي صلوات الله وسلام عليه ثم أوتي دعا وحويا بفضل ضعانه عنتدي وحي كهر همديس فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ طيب وحاولنا يسيدوا كلا أحمد أفر يتمنكم أفرتني أفر دبراني يعني أيسدنا حقولنا كنتم يتدبر وفي الباب وحقصوا عن أبي بكر الصديق حديث أبي بكر الصديق يعني لفظ جيسو وأبو بكر كتكوا بن مسقنا أبو داود بورنا بقول سلاشنا يكو عفوا وحقورنا يا أبو بكر وحقورنا يا بلال ابن عباس جابر صحابة ساكورنا سيدة بزار يا أبو بكر المروسي في مسنده وكتل معه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وابن عباس عبد الله بن عباس باورني وحديث أبو بكر وكورني وأبي هريرة يا ورني أخرجه البسار رسول صاري وابن مسعود عبد الله بن مسعود بايسجن ورني حديث ابن مسعود عفوا أبي هريرة سجن ورني وعصو صاري أبو يعلى أيا صو صاري نور الدين الهيثمي في المجمع السوائد حديث ابن مسعودنا أحمد يا أبو يعلى صو صاري طيب وأم الحكم أبي الرافع باكوري أبي الرافع حديث كيس إمام مسلم بصو صاري وحديث كيها أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضن شاة ثم صلى ولم يتوضأ وأم الحكم حديث كيس وعليه لم أقف عليه ما نندول استاقن وما نهلين لكن وحا صو صاري ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني حديث كيها صدحكم بقول يلحنا يلبا حاكم في المستدرك لحكم سقال بقول لبي لباتن أيوك صار وحصو إسدنا عمر بن أمية حديث عمر بن أمية أخرجه الطبراني في الكبير أما حديث سويد بن نعمان حديث كيسة أخرجه البخاري وصوصار وأما حديث أم سلمة أخرجه الإمام أحمد أنها قالت قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا
مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ إمامك حليه ولا يصح ما أنصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده لنك السنة كي سمرك لغفره وإنما رواه حوري حسام ابن مسك باوري عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح صدى صحيحة وحوي إنما هو حديث حوي عن ابن عباس وكهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند ابن عباس وليس مسند من أبي بكر هكذا روى الحفاظ سدى سيوري وروى من غير وجه أي من غير طريق عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء بن يسار باوري وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد يهل وحكب بن باوري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ما نشيغن عن أبي بكر الصديق ما نشيغن وهذا متكن ضمن ابن عباس لقورني أيا الصح وكسر حسن حديث كهوري أبو بكر لقورني والعمل رقم كنا على هذا حديث كان هذا عند أكثر أهل العلم بدن كودا ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كم والتابعين تابعينتي ومن بعدهم كوي تابعين تكدم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد كان لما انتظروا حيكون تقين ترك الوضوء مما مست النار رأوا وحي أركين ترك الوضوء ويسدي إن لقته مما مست النار يدبق وحطاته دب اللبوب وهذا كان آخر الأمرين لبضع الرمض متك ودي دنبيوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبضع الرمض محيين إن لقوا يسيستو إيو إن لقوا يسيسا كي دنبيوي إن لقوا يسيسا وكأن هذا الحديث حديث كان واحد مودال ناسخ ومنسخ للحديث الأول حديث الوضوء حديث كي ويسقات كتلمامي مما مست النار ودبق وحطاته إن لقوا يسيستو وكان ضمن النسائب أولونية وقل سيدة نيشان باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل فقه الترمذي مركو فيرس مركو كوسو تلمامي شيء دب لو يعني مركا لو كريي ان لغو يسقادنه بو حكم عام كا وحو كساريا حكم خاصه باب غوني وبخاي كو صار هلبكي غير لغو يسيسني حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن عبد الله الراسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عاصم قال وحول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بالويدي عن الوضوء ويسقات كاللغو يسيسن من لحوم الإبل هلك قيلة قال وحول توضأوا منها كويسيس وسئل وحال ويدي نبي عن الوضوء ويسقات كاللغو يسيسن من لحوم الغنم هلك كارقة بكويسيسن قال لا تتوضأوا منها كويسيسنين أبو داود بورني بقول سديتني أفر ابن ماجه أفر بقول سلاشني أفر أحمد بن سديد توهم لحدا يوم تضبط أصلا قوت اليوم يوحي كتير كاس مركا محوها كلب كبيرة إلا قوي سنة يوم فقه سمركا عن تلمانو جلال مكتر الإمام دون وفي الباب وحاكوصا عن جابر بن سمرة في صحيح مسلم وأسيد بن حضير وكان نوصى صعود وقد روى حجاج بن أرضى بوري هذا الحديث عن عبد الله بكوري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير والصحيح هو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عاصم وهو قول أحمد وأنا قول كإمام أحمد هلبك قيل مركان لقوي سيسري وروى عبيدة بن معتب الضبي أياه وليونين ضعيف عن عبد الله الراسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الغرة الجهني صحابي إليها وروى حماد بن سلمة وري هذا الحديث عن حجاج بن أرضى فأخطأ فيه وكيف وقال فيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن سيد بن حضير والصحيح وصيد صحيحة وهو عن عبد الله الراسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عاصم قال إسحاق وحي الصحة وحاء صحي بابك هيلب جنجيل وكسر في هذا الباب بابك حديثان لما حديث باكوان صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا كسبنا حديث البراء بن عاصم وحديث جابر بن سمرة يعني مركا كسبا وهو قول أحمد وإسحاق وقد روي وحال عن بعض أهل العلم وحال من التابعين تكمل وغيرهم أنهم لم يروا مانع الوضوء والسقاط من لحوم الإبل هلب كجيل لقوا السقاط وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة سفيان الثوري أهل الكوفة
iyo imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka ah iyagu waxay leeyihiin maxay laga weyse qaadan maayo. khulaasada yani baabkan marka aan khulaasayno fiirino ayb baabkan laba xadiis baa ku soo arooray iyo hal xadiis oo daciifa. xadiiska daciifka waa kee usayd ibn xudayr. labada xadiis ee saxiixa waa jaabir ibn samura fi saxiix muslim ku yaala iyo xadiisu baraa ibn caasim. nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay hilibka geela in laga weysaysanayo. xadiiskii horena kaana aakhiru اlamrayni tarku اlwuduu'i mima masat الnaar. see laysu waafajinaya? xadiiskaa hore waa caam, qaacidaduna waxaa weeye yucmalu اlcaamu fii ma yatanaawalu. caamka waxaa lagu camal falaa wixii uu camimayo ee uu qaadanayo. khaaskana maxaa lagu camal falaa? wاlkhaasu fii ma baqiya. khaaska wixii uu la hadhay iyo masalada uu khaas yeelay baa lagu khasisaya. abu daa-uud waataynu soo marnay baabkan markuu tilmaamay isaguna inuu baabka gooni u saaray oo uu ka fahmayo maxay kaasina inuu caam yahay kana uu yahay maxay khaas inuu yahay. tirmidina waad haysaa, ibnu maaja iyo nasaa-i iyo yani waad u tegi doontaa idan muxadisiinta. ayb madhabka hilibka geela yani markaa inuu weysada jebinayo waa madhab اlxanaabila daawuud ibn cali الظaahiri jamaacatan min الصaxaaba. minhum waxaa ka mid ah sayd ibn haabit, ibnu cumar, abu muusa alashcari, abu dalxa, abu hurayra, caaisha, jaabir ibn samra radi allahu canhum. yani saxaabadaas ayaa ka mida. xagga dadka kale ee aan saxaabada ahayn isxaaq ibn rahweyh, axmed ibn xambal, ayib yaxya ibn yaxya, maxamed ibn isxaaq, abu sawr. annaga shaaficiyada ragga yani muxadisiinta aladiina jamacuu bayna alxadiisi wاlfiqhi ayaa madhabkaa rajaxa. waxaa ka mid ah abu khaysama, waxaa ka mid ah abu bakr ibn khusayma, waxaa ka mid ah bayhaqi, waxaa ka mid ah maxamed ibn mundir, waxaa ka mid ah ibnu jariir aلطabri. markaasu wuxuu yihi wahuwa qowlu caamati asxaabi اlxadiis. asxaabu اlxadiisku siday u badan yihiin. alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala kutubtiisa dhammaanteed wuxuu ku rajaxay hilibka geelu inuu weysada jebiyo. ayb fii saxiixi muslim wuxuu ku leeyahay 403 ilaa 272 wuxuu ku leeyahay yani wabihi qaala الshaaficiyu fi اlqadiimi. yani waa shaafici madhabkiisa qadiimka ah. markaasaa imaam nawowi wuxuu leeyahay wain kaana fi اlmadhabi ضaciifan, xagga madhabka iyo sida mashhuurka daciifba ha ahaade wahuwa aqwى daliila. yani waa daliil midka xagga daliilka xoog badan. majmuuca wuxuu idhaha wabihi adiin اllah, kaasaan ilaahay waxaan uga diin dhiganayaa inuu hilibka geela weysada jebiyo. bayhaqi wuxuu yidhi qaala اlimaamu الshaaficiyu in صaxa alxadiiثu qultu bihi waqad صaxa alxadiiثaani. shaafici wuxuu yihi xadiisku hadduu ansaxo hilibka geela waan idhi oo waa madhabkayga waan ku tegey. bayhaqi oo madhabka u khidmeeyeyna wuxuu yidhi laba xadiis baa ku ansaxay. yani warkaas shaafici haddaynu qabanno laba xadiis baa ku ansaxay. ayb ibn اlmundir ayaa isagana sidaasoo kale rajaxay. ibnu jariir aلطabri ayaa isagana sidaasoo kale rajaxay. maalikiyada iyo qowlka shaaficiga imaam shaaficiyada ee mashhuurka ah ayaa khilaafay. ayb wاlqowlu ma qaala rasuulu اlahi sal اlه alيه wasalam ida jaءa nahru اllahi badla nahru macqil. mar haddii webigii ilaahay subxaana wa tacaala u yimaado ceelkii yaraa ee macqil dadka uu ku kaantaroolayay waa laga tegayaa sooma. ayb qowlka nebigu marka waa sidaas. ayb waxaase masaa'il cilmiya inaad u barataan a'imada aqwaashooda waxaan u soo sardinaynaa inay tahay masale ijtihaadiya. hadduu idin yidhaahdo anigu waan ka weysaysanaya, adeer ka weysayso waxba hana la dagaalamayna. ya adigu haddaad diin u aragto aad leedahay aimadaas aan ku raacayaaye ka weysaysan maayo, dhib male hana ku dagaalami. haddaa adigu ilaahay ku caabudayso inaad ka weysaysanayso oo mid kale ku khilaafo waxba ha ku dagaalamin. sidaad adigu ilaahay ku caabudayso ku caabudo. ayb
baabkan iyo baababka ku xiga way dheer yihiin kama gaadhsiin karno wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab aclam billahi towfiiq